xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay khatartu leeyahay cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalkaasi China kuna sii fiday dalal badan oo ku yaala caalamka. Waxaana agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Axmed Cabdi Xergeeye oo ay weeliyeen mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda caafimaadka Somaliland faahfaahin ka bixiyeen cudurkan iyo khatartu leeyahay iyo siyaabaha la iskaga ilaalin karo. Waxaan bilownay inaanu sameeyno wacyigelin oo dadka loo sheego sida imikaba la idin sheegayay waxyaalaha xanuunka laga hortagi karo. maadaama xanuunkan aanu ahayn xanuun daawo leh waxa ugu muhiimsan in dadka la baro ka hortagga sidii looga hortagay sida looga hortagay waxyaalo waaweyn oo hawl badan qaadanaysa maaha marka laga tago waxyaalo yar oo personal protection la yiraahdo qofku waxaan uu sanka ku xidhanaya marka laga tago wax hawl badan u baahan ma waxa weeyaan faraxalkii waxa weeyaan in qofku uu isagu isxakameeyo marka uu dareemo inuu leeyahay xumad ama qufac isaga oo ka badbaadinaya xanuunka qoyskiisii iyo qarankiiba qoyskiisa wuxuu uga badbaadinayaa inuu qolkiisa gooni ku ahaado oo caruurta iyo dadka waaweyn uu gooni ka yar ahaado muddada uu xanuunka dareemayo iyo qarankii oo aynaanu meelaha la isugu yimaado ama dadku ku badan yihiin aanu tagin oo isaga isxakameeyo waxa la inoo sheegay muhiimadda farxalka waxa la inoo sheegay qaabka uu qofku u qufacayo ama uu hindhisayo oo iyadana la inoo sheegay in si hygiene leh oo aan dadkii aanad qaadsiin ama tissue amba masar amba gacantaadaba aad ku daboosho si aanay wixii meel dheer u gaadhin deedna hawada inta u qaado qof kale aanu qaadineen xanuunka waxa la inoo sheegay xanuunkani inuu yahay amba aynu ognahay xanuunkani inuu yahay xanuun sida durayga ah oo waliba ay heerka dhimashadu ay yar tahay oo ilaa 2% lagu qiyaasaya waa duray xumaanayo way wuxuu leeyahay oof buu qofka qabanaysa deedna qaska qabanaya marka heerka dhimashadu haday 2% tahay aad bay u yar tahay laakiin waa xanuun fidaya duraygu waa ka aynu safnira dadka uu wada saameynay ilaa haddana alxamdulillah qof qaba cudurkaasi oo aynu ogaanay oo aynu helnay oo wadanka inoo soo galay ma jiro walxamdulillah taas waa ilaahay mahadi marka ilaa hadda halkaasi ka shaqeeyaan shaqaalaha caafimaadku oo ay ka howlgalaan taas waa wixii ka hortagii meelaha la inooga soo galo waxa kale oo tababarnay shaqaale caafimaad oo ka kala yimid gobolada oo dhan oo noqonaya shaqaalihii tababarayaashii shaqaalaha kale gaari lahaa gobol kasta ayaanu tababarnay oo ku tababarnay cudurkan sidii looga hortagi lahaa sidii loo daweyn lahaa sidii loo xakameyn lahaa kuwaasina waxay ka howlgalayaan goboladoodii oo ay iyaguna tababarayaan shaqaalihi caafimaad ee ka shaqeynayay goobaha caafimaadka wax weyn qof kastaba fayadhowrkii ayaad moodaa inuu qayb badan ka qaadanayo xanuunkan marka waxyaalaha ugu badan ee la doonayo in kor loo qaadaa waxa weeyaan maanta fayadhowrkii fayadhowrkaas waxa kamid ah waxa laga yaabaa qof xanuun kale oo kale sidoo idii sheegayay waa drops ama dhibco ku dhacay inta anigoo kale xanuun kale hadaan bahalkan taabtay oo aad qof ka daba qaato waxa laga yaabaa inaad qaadi kartid si dhibiro qaadi kartid faraxalkii oo kale oo lacag badan aan naga qaadin waxa la doonayaa waxa weyn inuu saas oo kale faraxalku uu noqdo oo joogto ismaan axmed ismaan saab TV Hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhnow